كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي بقولي لحدنية أفراد قيبتي سدحاد أوبدك يا إنترنتك برنامج كيني بربارنت أوبدك وحين كوجود جرنا تلوين مهم وكسر حبسان إنترنتك تلاد سدحاد وحويه in lala socdo oo laga warhayo lana waa maxay markaa la dhiirigeliyo ama lala hadlo ubadka markaa siyaabaha maadaama wixii internet uu yahay aanu ka waramayno waxa la yiraahdaa la socodka ubadka macnaha ama ka warhayntooda waxa ay isticmaalayaan waxa ay sameynayaan waxa ay qabanayaan waxa ugu fiican baa marka ugu horeysa in laga bilaabo shaashadaha ama waxaan ay ubadku isticmaalayaan marka horeba inay noqoto wax common macnaha guriga oo dhan ka dhaxeeya oo haddii guriga tusaale ahaan TV kay looga baahan yahay dee halka hoolka oo kale ama jikada oo kale ama meel gaar ah baa dhigaya marka TV gaasi dadka oo dhan buu ka dhaxeeya qof kaligiisa oo gaarkiisa ku mashquulayana ma jiro qof kaligi gaar oo qolkiisa u qaadan karaana ma jiro halkaas ma taqaana waxa la yiraahdaa marka waalidka waxa fiican baa la marka halka inay wax caam ay ka daawadaan ama waxbarasho ay ka daawadaan ama waxyaabo yaro iska madadaalo ay ka daawadaan hadba wixii ma taqaana fiican marka adigu wanaagsan xaafadana maxay ka wada daawato halka waxa ka baxaya macnaha dhibaatadii iyo waa maxay shakigii iyo waa maxay mashquulkii iyo ubadku marka waa maxay ku dhici lahaa marka taasi waa maxay wasiyaabaha horta marka ubadka loola socon karo. qodobka isaguna afraad waxa weeye oo lagaga bixi karaa dhibaatooyinka internetka ama maxaa la yiraahdaa talooyinka kamid istimraar fi alhadithi ma'a atfalik macnaha inuu qofku joogteeyo la xiriirka la hadalka la wada sheekaysiga ubadka marka ilaa heer ay gaaraan bale ubadku macnaha inay marka deganaadaan oo ay xasilaan ilaa heer ay gaaraan baa dhibaato ku soo dhacda ama wax ku soo kordha waxa intaba ha ahaatee ay markaba maxay kula yimaadaan oo ay gaaraan macnaha inay kula saaxiibaan marka halka waxa ka baxaysa xilligan hadda la joogo saamid ognahay qofku ilmaha yar hadda jira 5 jirka ka 10 jirka 25 qofka weyn moodel qofka hadda waa maxay markaas uu la sheekaysanaya oo ku jira oo isticmaalaya laakiin waxa waalidka looga baahan yahay baa la yiraahdaa in routinkooda ama daily life-kooda ama waxa ay maalintii qabanayaan inay ka mid noqoto saacad 30 daqiiqo ama 2 saac in ubadkooda la qaataan hada waalid dib u fakaro macna maalintaada ma ku jirtaa 30 daqiiqo ubadka la qaadatid ay macna leeskada maalintii qabanaysid waana ku jirtaa saacad 30 daqiiqo 20 minute ubadka la qaadan la sheekaysanay iyadoo markaa waa maxay loo dul qaadanayo oo loo sabrayo qaladka ka dhacaya ama ka yar ama ka weyn inta la wada fadhiyo wax la wada cunayo la wada sheekaysanayo mid tagaya mid wax qaadaya mid wax sameynaya taas waxa la ka caawinaysaa baa la waalidka macnaha qaladaadkii badnaa ama internetka ku mashquul lahaayeen ama dhibaatooyinka soo gaari lahaayeen ama waxbarashada kaga mashquul lahaayeen waxa hadii waalidka si fiican ubadku u dhaxgalaan oo ay si kal iyo laaba ay ula saaxiibaan oo ay wax la cunaan la fariistaan la joogaan suuqi u raacaan waxbarashadii u raacaan kala soo noqdaan uma baahanayaan inay mobile iyo Facebook iyo wax maanta ay ugu jiraan. qodobka u dambeeya qaybta ku soo koobeena oo shanaad waxa weeye waxa la yiraahdaa macnaha way adag tahay si xilligan la joogo waalidku ubadka internetka say uga control karaan ama si markaa waa maxay uga ilaalin karaan waxa la yiraahdaa hadii guriga ay kaga controlaan oo tusaale ahaan saacadii guriga joogay in lagu cunay xilligu seexanay xilliga waalidku la sheekeynay xilligu la hadlay hadii moolba uu laga control moolba uu waayo waxa la yiraahdaa noloshu waxa la guriga kaliya ma aha magaalada iska isticmaali karaa oo waa maxay kharij al manzil guriga dawladda iska isticmaali karaa xudda iska sameynaya
marka haddii halkaas soo gaadho maxaa la sameynaya? markaas oo kale waalidka waxa looga baahan yahay baa la yiraahdaa in ay hal qaacido sameeyaanoo inay mas'uuliyad ay markaas saaraan ilmaha. wax la yiraahdaa inay dareensiiyaan ama ay u sheegaan inuu macnaha yahay qofkani qof mas'uuliyad qaadi kara, qof mas'uuliyad markaa xambaari karo, qof mas'uul ay ka dhigaan oo aanay ula dhaqmin dee wax macnaha wax yar hoose ama wax yar maanta mar la garaacayo, mar la eriyanayo, mar la khasbayo, mar la caburinayo, dagaal lagula jiro. ana qof wax challenge aan noqon. haddii challenge noqoto maanta haddana qof challenge noqdaan dee haddaad tiraahdo guriga ku isticmaali meeshid dee magaaladiisu ku isticmaalaya moolka. marka taas kaloo challenge noqonaysaa maana wixii waa maxay in saa la isugu hor yimaado. marka taa waxa fiican baa la yiraahdaa in mas'uuliyad marka la hadda mas'uuliyadda waa maxay sidee loo dareensiinayaa marka waxaa in moolka mas'uuliyadda dareensiiyo si marka ay moolka waxa maxay aan uga yaraadaan. mas'uuliyadda waxa loo dareensiinayaa baa la yiraahdaa inta loo yeero kuwa waaweyn ha ahaadaan, kuwa dhexe ha ahaadaan, kuwa yaryar ha ahaadaan, waad u yeedhaysaa marka, waad la fadhiisanaysaa, waad la sheekaysanaysaa. kadib waxaad leedahay mool baa qof kasta haystaa, ama qof kasta iPad buu haystaa, ama qof kasta laptop buu haystaa, ama qof kasta wuxuu haystaa moobile kala duwan. waxaad leedahay weekend maxaynu sameynaa? weekend videoga daawanaa, weekend buugga akhrinaa. iyagaad adigu mas'uuliyaddii macnaha adiga ku saarnay iyo waxaad adigu aad u qori lahayd u soo bandhigi lahayd iyagaad ku soo celinaysaa marka. therefore marka waxay sameynayaan qof kasta inuu fikiro marka war hooyo waxay ku tiri aabbo wuxuu ku diray isaga marka waa maxay mas'uuliyad buu saaraya. waxaad leeyahay maanta hebel baa maanta waxa leeyahay 10 soo diyaarinaya, isaga ma YouTube ka gelaya 10 ka soo raadinaya, wuxuu ka soo waramaya mowduuc ku saabsan waalidka. ninka yar ka waran, ninka yar uu daalaya maskaxda daalaysa si uu ordayo maanta halkan waxbuu soo qoraya, qalin buu raadinaya, buug buu raadinaya. kaasoo kale intii qaybtii negative-ka ahayd, qaybtii negative-ka internet isma arkayaan. waayo wuxuu soo arkaa qof waalidkiisa ay la hadlayaan, u istaagayaan, qadarinayaan, ixtiraamayaan. iska daa waxaasoo dhane isagii mas'uuliyad la saaray oo isagii wax laga rabo. marka kaasoo kale waalidkiina waxa ka baxaysa inay ay ubadkii waxay markaa maxay ka warwaraan ama ay ka shakiyaan ama ay ubadkii waalidkii maxay ay iska hor yimaadaan markasta moolka xidhi maayo, bixi maayo, seexan maayo. saas noqonaysaa marka saasna maxay hadda ubadka ku adagtay. xilliyadii hore oo kale technology waxa ma jirin, ulun baa la isticmaalay oo hadduu xagga eego xagga kale eegin baa la oranay. laakiin hadda wixii waa taskata internetka yar waa on iyo off baa ka xigta. marka taas waxa loo baahan yahay qofkii inuu aqoon iyo maskax iyo farsamo iyo khibrad iyo inuu farsamooyinka barbaarin saa inuu u yar isticmaalo noqonaysaa. marka halka waxaan ku soo dhameynay 5 qodob. markasta ubadka la hadalkaaga, waqtigaaga, dheeroodinkaaga ugu jirto inaad la hadashid. ta kalena waa maxay ku jirto isaga marka mas'uuliyadda marka dareensiisid. marka dhibaato badan oo ubadka ka soo gaari lahayd ama waxyaabo badan oo sameyn la qaladaada way ka baxayaan meesha. intaas ku jeenaa oo si wada insha Allah ta'ala 10 dambe. wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa